ورحمة الله وبركاته. halkan aan joogno waxa weeye waa xarunta booliiska federaalka Soomaaliyeed waxaanan u nimid inaan muxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida iyo dadka oo dhan inaan u sheegno ujeedada halkan saacadaan u taaganahay. ujeedadu waxa weeye inaan muxuu ahaa sugno amniga oo dadka shacabka ka badbaadino dhibaatooyinka ku imaanaya ama ha noqoto mid anaga gudaheena ama ha noqoto mid kale ama ha noqoto masiibooyin muxuu ahaa dalka sidiisa ugu dhaca. halkan waxa jooga wasiirka amniga, waxa jooga gobernatoorihii, waxa jooga taliyaashii ciidamada oo dhan oo noocyada kala duwan ah qalabka sida anay ii wakiisheen ciidamadu inaan u hadlo. dhammaan ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay ka qayb gala amniga xasilinta amniga ka qayb gala uga qayb gala si Soomaalinimo ah oo fiican uga qayb gala adinkoo waajibaadkiina fulinaya haddana dadka u naxariista dadka shacabka u naxariista adinkoo waajibaadkiina fulinaya gacan adagna ku qabta kuwa muxuu ahaa cadowga dhibaha shacabka dhibahaya oo u diidaya inay nabad ku seexdaan gacan adag ku qabta. ciidamada sidii la sheegay waxaa la rabaa ninka amniga loo xil saaray maahane ninka kale inuu ku ekaado meesha uu ka tirsan yahay goobta uu ka tirsan yahay inuu ku ekaado. haddii uu ku ekaan waayo oo asagu uu dabco inuu amniga qalqal geliyo waxaa loo qaadanayaa ama lagu xisaabinayaa nin amniga ka soo horjeeda kuwa lala dirirahayo ayuu qayb ka noqonaya. askari kasta noocu raba ha ahaadee ama boliis ama military ama nabad sugid ama asluub noocu raba ha ahaadee xeryahooda ha ku akaadeen inta amniga laga fulinayo. ninka baxahaya oo raba inuu baxaana waa inuu qaataa awaamiir iyo amar uu ka qaataa meesha uu ka tirsan yahay oo la og yahay markii la qabto oo ciidamada xasilintu ay qabtaan in la weydiinayo meesha uu ka tirsan yahay. hadduusan la ogeyn meesha uu ka tirsan yahay ama uusan amar ka qaadan ama uusan soo sheegin wuxuu askarigaasi mudan doonaa in asaga ciqaab adag la mariyo oo ka horraysa midda la marinayo nabadiidka asagaa ka horreeya waayo asagii baa isku gudbahaya ama hor istaagahaya amnigii. saas daraaddeed askarta waxaan leeyahay ka digtoonaada inaad muxuu ahaa ku kacdaan inaad hor istaagtaan amniga inaad hor istaagtaan oo ciidamada loo xil saaray oo gaarkaa oo sida gaarkaa u labisan inaynaan ku carqaladaynin inaynaan ku dhibaataynin inaynaan hor istaagin. arrintaas waxaa laga sugahayaa ciidamada qalabka sida noocay rabaan bahaadeen hadday dhacdo waa saan sheegahayo wey. taas waa ciidanka weeye. shacabka waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan ciidamada qalabka sida iyo cidda amniga ka shaqaynaysa ama gobolka ha noqoto ama ha noqoto ciidamada qalabka sida inay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan waayo waxa loo shaqaynayo oo la rabo in la badbaadiya waa ayaga naftooda iyo sharafkooda iyo maalkooda ayagaa la rabaa in marka ay ayaguna qayb ka noqdaan. haddii kale oo aad adinku qarisaan kuwa loo socdo haddaad qarisaan waxaa dhici karta in laydinka shakiyo dhibaatana idinka soo gaarto. saas daraaddeed shacabkuna aan waxaan odhan lahaa ha ka taxadireen oo hadhow waxbaa nagu dhacayaysan odhan. nimanka nabadiidka hadda ka hor ayaa loo fidiyey cafis mar ma ahan laba ma ahan saddex maaha intaasoo jeer baa loo fidiyey waa ka dhaga adeegeen. qaarkood waa yimaadeen waa aqbaleen haddana waxa weeye waxay qayb ka yihiin dhismaha qaranka Soomaaliyeed bay ka yihiin ayaguna waa og yihiin kuwa hadda ku haray weli. laakiin kuwa ayaa jira maskaxdoodu weli aysan deganayn oo meel kale ku laalan tahay ayagana waxaan leenahay soo raaca. haddaad soo raaci weydaan soo maaha go'aamadaas adag oo la gaarahayo ayaa idinku dhici doona. dadkana ha halaaginina adinku hays halaaginina diinta ha halaaginina waxa weeye ka soo laabta anugu saasaan odhan lahaa waana mahadsantihin.